السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان سيدو كلا ولي وحو كسابسين هاي الشيت waxyaaba dheeraad ah sheetka lagu sameeyay karo iyo cashirkan aan ku soo qaadan doonaa waxa kamid ah rename sida magac kale loogu bixiyo sheetka move sheet sida move ka sheetka muxuu ahaa meel position ka ama boska hore ay haysata laga bedelo waxa la shan loo dhaqaajiyo meel kale loo geeyo sida loo koobiyo oo muxuu ahaa iyo sida color loogu yeelo sheetka so tusaale ahaan halkan hadda waxa iga furan Excel ay furan sheetkayga koowaad aan taabto sheetka koowaad markaan taabto sheetka koowaad halka ay ugu qoran markaan taabto waxa igu qoran waa kana qoraala iga buuxo kan kale hadii aan taabto waa kaasagana qoraala ka buuxo kana qoraal baa ku jiro kana wax kala 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 ku jiro waxaan cashirka hore ku soo qaadanay in door sheet document door sheet ka kooban loogu yeero workbook marka hadda waxa ay halkan yaalo waa work laakiin workbookan wuxuu ka kooban yahay 10 sheet ka kooban yahay laakiin 10kiiba kuma wada muuqdaan eeg 1 2 3 ana hadan tan tuujiyo waxa tan hadan tuujiyo tan kale waxa ay muuqato oo kaliya 7 baa iga maqan laakiin hadii ay ahaan lahayd ka waran document lagu soo diro loo dhahay 10 tab weeyaan ama waa 10 tab ama waa 10 sheet dalada tab 1 tab 2 tab 3 tab 4 tab 5 tab 6 tab 7 tab so marka koowaad waxa weeye marka erbadan yar eeg markii workbook uu yeesho sheetyo badan ama bogag badan uu yeesho sidan oo kala ama taab badan uu yeesho calaamadaha soo baxay calaamadaha lagu socdo marka waxa weeye hadda tan u dambeeyay wata hadii aan rabo marka qaybihi kale laga qarsoona inaan soo saaro calaamadan yaraan tuujinaya kaamida soo baxday gadaal ka soo baxdo hatana marka la tuujinaya hadana laba kala soo baxay 1 2 3 oka marka saddexdana iga maqnaa 7 ii muuqatay 10 sheet saddexda iga maqnaa waa kun subhan qaabkaas la soo saaraa sidoo kale hadda dhinacana ku qarsooman hadda dhinaca kale inay adana arrow hadba meesha filaarta ay ka jirto ee ka jira marka hadda tan taabanaya dhinaca soo socona hadana oka taago markaas hadii aad rabtid inaad wada ogaato dhamaan workbook lagu soo diray inta tab uu ka kooban yahay hadii aad rabto inaad wada aragto qaabka sameynaysa arinta koowaad aan ku sameynayno muxuu ahaa intigeena waxa weeyaan halkaan imaanaya just a minute okay arinta koowaad aan sameynayno waxa waaye rename sidii magaca looga bedelo okay wali waxa meeshan easy dheer inaan ku dari doono waxa la dhaho hide iyo unhide ku darayna okay hide iyo unhide ku daraya okay so كو waxaan sameeynaa waxa weey rename sida magaca looga bedelo magaca hadda kan ku qoran waxa weey my link b ah qoran waxaan rabaa inaan ka bedelo so magaca sidaan rabaa inaan ka bedelo sida koowaad aan uga bedeli karo waxa weey double click halka la imaanaya laba jeer aan tuujinaa dhag aan siinaa markaan sida siiyo then my okay waxaan soo qoranaa waxaan doonaa okay my face okay magaca soo uga bedelanaya okay sida kale uga bedelan karo waxa weey marka inaan halkan tan qalinka keeno right click markaan halkan rename ay soo baxay rename ka san taabanaya kadib waxaan rabaa ku qoranaya link okay saas aan ku magacaabana so qaabkaas ay rename loogu sameeyaa muxuu ahaa sheet kiban qaabkaas ay rename loogu sameeyaa midda xigta waxa waaye sheetkii oo la move garayo oo macnaha qaybtii uu joogay meesha hadda sheetkana fiiriyo hadda siga u dambeeyo sida halka loo maray dhinaca ana isku iyar shaandeysa rabtaa oo sheetka halkan u dambeeyay boga koowaad aad ka dhigto tusaale ahaan marka waxaan sameynaynaa laba qaab loo sameeyaa qaabka koowaad waxa waa inaad dhab siiso mooskaaga dhinaciisa bidixda dhab inta siisid oo ka afka u saaray marka waa ka aad meesha rabto aad keento adiga tusaale ahaan aniga halka meesha u dambeeyay ka soo hormaray bis isaga u soo horeeyay waa iyadan u soo hormariyo ka iyada u dambeysay iyada u soo hormariyo daraba inta ka qaad kara dhab aan siina inta ku sii daayna meesha aad rabto markaad gaartaad sii daynaysaa okay so hada dhinacana geena halkaas ku sii daayna taa waa midda kale waxa weeye inaad right click inta dhahdo هذا مove ماشي قرنت move تجيسا
then sheetka aan move garayn rabo waa kan marka xagee hoos u baxaya halkan waxaa ku qoran move to the end meesha u dambaysa inaan geeyaan rabaa qaybta u dambaysa inaan geeyaan hore jirtaa moogtahay move to the end halkaasaan taabanaya then okay aan leeyahay okay ayada u dambaysa waa kan haddii aan rabo move aan dhaho haddana hoos aan usoo baxaya ilaa ayada u dambaysa move to the end haddaan dhaho haddana wuxuu aadaa dhinacaas u geenaya to the end hadduu joogaa dabcan waxaan sameynayaa ayagaya inuu move kaleeta leeyahay okay it doesn't have so intaan ka raadinaya okay new book okay no need marka qaabkaasaa loo move gareeya oo dhinaca kale loo geeya maxay ahayd sheetka meesha u dambaysa ama positionka aad rabto saanad u qaada intaan gelin karaa okay qaabkaasaan yeeli karaa okay taa waan bognay maxaa noo soo haray marka copy sheet copygan aan rabaa inaan sheetkan maxaa iigu qoran fiir waxaa ku qoran sheetkan si fiican u fiirsiyaa sheetkan aan rabaa inaan copy ka saaro waxaan leeyahay right click isla meeshii move ay ku qorneed or copy ay ku qoran moogtahay halkaasaan taabanaya intaan imaanaya maxaa iigu qoran create copy taasaan tuujinaya markaan tuujiyo okay copy aan ka sameeyo ka tii halkaas ay iigu qorneed tan halkan ay imaad fiir number 2 ka dhigay okay labadooda isku waxa ku qoran kana tuuji copy aan ka sameeyo okay undo aan dhahay okay so waxa kale oo xigo aan sameynayna aan ku sameyn karno haddana aan hilmaamay waxa weeye iyaga naftirkeeda waa delete gareyn karnaa muxuu ahaa cellka hal sheet baan delete gareyn karnaa so inaan delete gareyno aan isku dayayaa waxaan keenayaa qaybtan hore aan soo hormarina halkan copy aan ku xijinaya okay so let me try that okay so yes okay so inaan delete garay haddii hadda aan sameeyay marka iyadoo ta originalkeedii copyga aan sameeyay kan uu ahaa delete aan dhaha right click markaan dhaho halkan waxaa ku qoran delete kaas taabanaya si delete garay baan leeyahay what is this sana isku dayin okay so tii aan haystay halkan marka waa tana tii aan haystay waa tana maxaa ii haray so copy and then delete okay delete waan sameynay oo aan tirtirnaa aan masaxno waan sameynay bal waxaan isku dayaa marka haddana inaan sameyno color in aan u yeelnaan rabaa batonadan inaan color u yeelaan rabaa baton walba color gaar waxaan leeyahay marka ama waxaa la tab kasta right click aan leeyahay right click markaan inta waxa qoran tab color so green aan ka dhiganaa kanaan imaanaya right click aan leeyahay right click markaan dhaho bab color halkaan imaanaya oo aan tuujinaya okay ana waan tuujinaya color kale u yeelaya asagana colorka ima halkan sima bab okay marka inta doonta color u yeeli kartaa marka so kan hadaan taabto aan tuujiyo waka uu soo baxaya kana ta tuujiyo waxa ku jira waka waxa jiro waka kan waxa ku jira waka marka waa kana alaabtan marka waa workbook dhan oo dhameystiran waaye oo bogiisa koowaad bogiisa tobanaad intaba mid kasta ay wax ku qoran yihiin sidaa u kala fahmaan marka halkaas ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.